waxaana wanaagsan khiyaarta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon oo halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba uu idmo. ururka al-shabaab ayaa maanta diyaaradaha dagaalka ee dalka Itoobiya waxay duqeyn xoogan ugu geysteen gobolka Hiiraan. waxaa kaloo qodobada wararkeena aad ku maqli doontaan wasiirada dalka Soomaaliya oo lagu dhawaaqi doono maalmaha afka nagu soo hoy. waxaa qodobada wararkeena faahfaahin doona ishana ku hayay saaxiibkay Cabdi oo igula sugan barnaamijka. Cabdi soo dhawow ururka al-shabaab gobolka Hiiraan waxaa la sheegayaa degmada Matabaan inay maanta tuulo agteeda ay diyaaradaha dagaalka ee dalka Itoobiya weerar xoogan ay ku qaadeen halkaasna dhibaato loo geystay. maxaad kala socotaa? mahada horta marka hore waa mahadsan tahay ururka al-shabaab Matabaan iyo gobolka Hiiraan meelo badan ayay ka joogaan marka maanta diyaarado ilaa dhowr gaarayo diyaarado xataa Soomaaliya wali laguma arkin ilaa 5 diyaaradood ayaa meesha soo gashay leeyahay marka duqeyn ay meesha ka sameeyeen waxaana gaarin nooha ay saraakiil saarneed ay madfac ku dhifteen waxaa kaloo ayagana ay sheegay duqeyn ku sameeyeen ilaa iyo dhowr gaari oo meesha maraya ay duqeynta ku dhifteen marka waxaa leeyahay meesha laba sargaal ayaa ku dhimatay magacyadooda lama sheegin laakiin waxay leeyihiin gaari nooha ayaan duqeynay iyo dad kale oo ciidamo kale meesha la socday marka halkaas ay duqeynta ka dhacday wiilina waxaa leeyahay ilaa galabgaabkii waxaa waaye wixii way ordayeen oo diyaarado fara badan ayaa meesha socday marka mahadu waxaa leeyahay meeshaas duqeyn fara badan ayaa ka dhacday haddana weli cabsida way jirtaa inay duqeyn kale ka dhacdo. Okay, Cabdi waxaan la soconnaa inay ururka al-shabaab maalmahan xuduudka Itoobiya ay leeyihiin Soomaaliya inay weeraro ay ka fulin hayeen oo ayaga ciidamada New Police ee dowladda deegaanka ay ku dagaalamahayeen dowladda Itoobiya ee federaalka ciidamadeeda militariga ee kuwa cirka ayaa weerar maalmahan shalay iyo maanta way qaadeen. waxaa la sheegayaa ilaa garas weyne meel lagu magacaabo dhinacan Bakool lafteeda in ay duqeeyeen shalay ay duqeeyeen iyo isla maantaba laakiin kuwa wax war oo fiican oo dhimasho oo hadda soo baxday lagama sheegin. dhinacan Hiiraan degmadan lagu magacaabo Matabaan agteeda tuulo yar oo hadda lagu magacaabahay Cumaad wax saas lagu magacaabay waxaa la sheegayaa diyaaradaha marka ay duqeeyeen saas horeyba hadda noogu sheegtay laba sargaal baa lagu dilay iyo ciidan kale oo fara badan oo la socday laba sargaal gaari nooha bay saarnaayeen. waxaa kaloo la sheegayay gaari Cabdibila oo ciidan asagana saarna kuwa qoryaha dhishika saarin in la gubay. waxaan is dhihi karnaa ururka al-shabaab maalmahan ayagii Itoobiya ayaa dagaal xun baa dhexmaraya. bal ka waran Itoobiya weli waxaa laga yaabaa in ciidanka laga laayay weli ay ka samrno weeraro xoog leh oo kale inay fulin doonto. والله horta meesha haday duqeyn imaado xaaladdu way adkaanaysaa marka waxa laga yaabaa xataa Itoobiya dad shacab inay duqeyso sababtoo diyaaradaha markay wax duqeynayaan waan naqaanaa diyaaradaha Kenya markay duqeynayaan waxay leeyihiin ururka al-shabaab ay duqeynayaan dad shacab ay marar badan duqeeyeen marka Itoobiya waxa laga yaabaa wixii meel marayba inay iska duqeyso sidaan ku naqaano markii waagi magaalada Muqdisho aan joog jirnay Itoobiya waxaan arki jirnay ayadoo qofkii meel marayo oo isheeg markii wax lagu tuuro ama dagaal lagu qaado dadka meesha maraya dhan ay dhameyn jireen marka Itoobiya dad naxama aha ciidamadeeda waxay sameynayaan duqeynta way iska duqeynayaan meelo badan oo shabaab joogan iyo meelaan joogin iyo shacab meesha baawar iska maraysa deer way iska duqeynayaan laakiin diyaarado fara badan ay soo kiceen ilaa 5 diyaarad gaarayso marka cabsidii way badan tahay in wax kala duqeeyaan waa laga yaabaa mahadow sababtoo waxa waaye ciidamada ciil ay qabaan oo ciidamo fara badan iyo xuduudka dhowr meel laga galay marka Itoobiya way careysan tahay dagaalo fara badan inay qaado waa laga yaabaa mahadow. Cabdi wararku waxay sheegayaan in hadda militariga dalka Itoobiya marka hore dowladda deegaanka Soomaalida ee ciidanka New Police loo yaqaano yaa marka hore dagaalka ku jiray hadda maadaama ururka al-shabaab ay weerarka ay badiyeen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya oo dadaabadooda wata ayaa xuduudada aad loogu soo kaxaynaya kuwaasoo maalmaha soo socda say dadku ay sheegayaan in ay xuduudada weerar ku qaadi doonaan diyaaradaha cirkaana ayagana laftooda ay waxay geysan doonaan duqeyn meeshaas saas horeyba hadda noogu sheegaysa dhibaata soo gaari doonta. ururka al-shabaabna hata ayaga isku cadhiyay nimankan Itoobiyaanka oo ayaga isku cadhiyay dagaalkan waxaa laga yaabaa inuu dababa dheeraado cabaar uu sii socdo oo Itoobiyaanka u dhaxeeya ururka al-shabaab. qodobka haddan halkaa kaga gudubno Cabdi wasiirada Soomaaliya ayaa wax badan oo 32 bir ka badan yaa daahsan maxaa haysto ku dhagan. horta maada waa maasan tahay wasiirada Soomaaliya in lagu dhawaaqo marka dambeysay ayaa la rajeynay hadda waxa leeyahay waa markii ka dambeysay ay maraysaa hadii aan maanta iyo biri lagu dhawaaqan iyo biri dambe saddexaas maalin in ma garan karo sida wax noqon doonaan
laakiin dadka hadda waxay qiyaasayaan in 3 maalin soo socoto lagu dhawaaqi doono inkastoo dadka beelaha qaar ay diidan yihiin qaabka wax u maaranaya xasan maxamuud iyo saaxiibkiisa xamse cabdi bare marka dad fara badan ayaa waxay leeyihiin sida wax ku socdaan ma saxsano dad fara badan waxay raadinayaan wasiiro oo way laayihiin xildhibaano fara badan waxay leeyihiin haddii wasiiradan lasoo magacaabo anaga mooshin ayaaba ka keeni doonaa oo ma socon doonaan marka cabsi isjijiid fara badan iyo wasiiro la isku haysto iyo qol walba say wax u qorayso iyo xataa dad madaxtooyada laga celiyey la sheegayay shaqada madoobe xataa kamid ah dadka madaxtooyada laga celiyey inkastoo markii dambe raaligelin laga bixiyey oo lagu soo celiyey madaxtooyada oo xasan sheekh maxamuud la kulmay asaga naftigiisa wasiiro ayuu wataa marka qof kasta wuxuu rabaa qof saaxiibkiisa iyo qof wato ama asaga in loo magacaabo marka Soomaaliya qofka madax ka noqdo wuu ku wareeraa mahadow laakiin waxaa fiicnaan lahayd inuu qofka madaxweynaha inuu go'aanka asaga qaato iyo ra'iisul wasaarihiisa inay go'aan ay gaaraan wasiiradan ay qoraan ku dhawaaqaan mahadow cabdi warar waxay sheegayaan ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxaa la sheegayaa in uu durbaba dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu mucaarad uu ku noqday halkaas oo uu ka biyo diiday sida hadda habku wax u socday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse ay u wadaan xildhibaanada beeshiisana waxaa la sheegayaa in ay weli ay taagan yihiin in aynsa xalay Xasan Sheekh Maxamuud shir oo isku yeedhay in aynsa ka qayb gelin oo hadda weli ay taagan yihiin mucaaradnimo ay laftooda ay Khayre la safteen Khayre iyo xildhibaanadu maxay dareemayaan oo dhibata والله horta mahdow Khayre iyo xildhibaanada labada barnaamij kala wataan way kala duwan tahay sababtoo qaabka wax umareynayaan isku dhinac uma socdaan laakiin dadka ayaa waxay ka dhigeen in Xasan Cali Khayre isheegay arrimaha xildhibaanada diidan oo beesha ka soo jeeda Xasan Cali Khayre diidan oo madaxweynaha inay la kulmaan waxay u diidan yihiin macna kale Khayrena asagana Xasan Macalin oo si gooni u la dagaashanaya marka dadka waxay ka dhigeen wixii inay isku dhinac u socdaan Xasan Macalin wuxuu mucaarad ku ahaa dowladii Khayre iyo farmaajo waa la ogyahay dhibkii iyo kasoo wada mareen asaga iyo Saabir Shooriin la dhahay saaxiib yihiin oo asaga reer galmudug isla wada yihiin marka waxay ku kacsanaan jireen dowladda farmaajo Xasan Cali Khayre marka maadaama ay ku kacsanayeen hadda waxa way Xasan Cali Khayre marar fara badan isku dayay inuu xildhibaanada dhaafiyo oo u suuragal weysay hadda xildhibaanada Xasan Macalin ku soo laabtay hadda waxa la leeyahay wasiir ayaa loo magacaabaya marka Xasan Cali Khayre dabaqtan hore iyo siyaasadda macnaha isku khilaafsanayeen ayuu kaga soo horjeedaa midda kale xildhibaanada waxay kaga soo horjeedaan Xasan Maxamuud waa arrin gooni ah oo waxay leeyihiin anaga waxaan u baahanahay beesheena waxna la siinaa in naloo cadeeyo waxaa la sheegay Xasan Maxamuud inuu ugu qoondeeyay wasiir oo B ah wasiiradu waa A iyo B ee kala leeyihiin mogtahay marka wuxuu u qorsheeyay wasiir B ah iyo wasiir ku-xigeen ayagana waxay rabaan wasiir A ah marka iyo laba wasiir ku-xigeen iyo hal wasiir dowle marka khilaafka meesha ku jira wixii beesha ugu tala gashay caday ayay dhaheen asagana waa cadeyn waaye marka waxa la isku haystay meesha la iska galo halkaas wasiirada A waxa laga wadaa wasiirada waaweyn oo gaashaandhiga iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo waxa kamid ah maaliyadda marka wasiirada A kuwaas la dhahaa B-dan waa kuwa kale wasiirada kale iska caadiga ah marka wasiirada saas u kala sareeyaan marka waxa la isku haysto ugu badan waa in waxay dhaheen qoondada ee beesha oo Xasan Cali Khayre ka soo jeedo ee ku leedahay dowladda federaalka Soomaaliya noo sheeg haddaadan noo sheegin anaga kuma imaanayno mahado okay kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay Cabdi oo falanqeyn hayay wararkeena naga imaaday daafaha adduunyada khayrta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan saas iyo kulanti dambe oo wacan oo wanaagsan